tartanku waxaan soo marnay hal wareeg oo dhammaystiran taas oo noo saamaxday in aan ogaano ardayda ugu buundo badneed wareegga koowaad sida ballantu ahaaday tartanka wuxuu ka koobnaay hal wareeg kadibna wuxuu noqon doonay isreereeb waxaan soo qaadanay hal kulan hal wareeg oo dhammaystiran oo fasalada dhammaan ay is arkeen fasalka ugu buundada yar ayaa harayay fasalkaas wuxuu noqday fasalka saddexaad oo la yimiday buundooyin aad u hooseeyo oo ahaa 18 buundo fasalka ugu sarreeyana waa fasalka afraad asigana la yimiday 30 buundo marka waxaa soo baxay ama tartanka u soo gudbay saddexda fasal ee ugu horeyso oo ah 4 2 iyo hal saddexdaas fasal ayaa soo gudubtay fasalka saddexaadna waa haray sidaas darteed kulanka waxaa bilaabanaya qaybta knock-out-ka ama markii la isku dhacay kala harayo waxaa kulankan ku balansan oo fasal oo isku buundada noqday fasalka labaad iyo fasalka koowaad fasalka afraad si toos ah u tagi doona finalka waxaa fasalkaas ku biiri doono fasalkii baarlamaanka isagana finalka ay gaari doonaan kulanka finalkan wuxuu dhici doonaa maalin aan idin soo sheegi doono sidaas darteed tartanka maanta aad iyo aad ay u kululaan doonaa waa kala har naadiga badiya ayaa soo baxaya tartanka lama jiraayo oo dhex maraayo saas loo kala harayo marka soo dhawaada tartankeena ayaa noo bilaabanaya tartankeena intaan gudagelin ka hor waxa aayadaha quraanka iyo qolka ibn ugu furfurayo ninka la yiraahdo hanoo furfurayo Abdullah soo dhawo aayadaha quraanka qolka ibn المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa